Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan noo sameynayaa keegaas oo aan ka sameynayo 6 xabo oo kuna baking powder iyo carfiso sokor iyo bur. Insha Allah ila daawada sida aan ka sameyn. Waa aad ay u macaan badan yahay maasha Allah. Waa wax aad ka helayso jikadaada. Insha Allah taala isku soo noqonayna. Waxaa halkan igu jira butter ama subag, sokor iyo biyaha cananaaska. Intaana isku soo karinayaa. Markaan isku soo kariyo mar raba inaan sokor kariyo oo aan keega hoos u dhigo. Intaan rabaa inaan ka sameysto insha Allah. Hadda waxaan ku shubaa biyo cananaaska waay. Sokorta iyo butterkan hore igu jireen. Dabka ayaa ii gaabsan. Insha Allah waa soo walaaqaa. Waa isla soconaynaa. Ada ka heli doonti baroobe insha Allah taala. Waa kuwana ayagoo isaan u karayaan. Waa walwalaaqa si ay aad ugu shiilanto xoogay saanay noqotay saanay u shiilanta bes waay marka waa ka daminaa dabka masha Allah. Inta waxaa igu jirto 5 xabo oo kunaheed ayaan rabaa inaan baashas ku soo garaaco. Waxaa kaloo aan ku darayaa bakinga insha Allah iyo waxaan ku darayaa sokorta aad iyo aadan iskugu soo xurbinaa. aad aan soo xurbina markaan soo xurbiyo ayaan waxaan ku daraa carfisada iyo hadda waxaan ku darayaa waa bakinkii sokortii bakinkii aad isku walaaqaan baashas aan ku soo walaaqaan waa kana insha Allah aad aan soo xurbina waxa ay hara carfisada iyo burka bes ay yareen awal wax weyn ma ka sameeyeen intaas aan ka sameeyay insha Allah intaasna guriga waa laga helaa mar walba waa keeli galabta casriya masha Allah bes waa marka waa walaaqa burkiyan kiskis ugu daraya hadeertan si fiican ugu xurbinaya bes waa marka xagaan dhigana marka waa kana wixii aan soo karsado sokortii butterka iyo biyo canaaska saxanka ku soo shubana maraba meeshii sokorta aan uga shubi lahaa inaan kana aad macaan insha Allah iska baroobeeya markaa baroobeysiin waa dareemi kartiin ma fahanti macaankiisa waa kala gaagaarsiin saxanka dhan masha Allah soo jiidmaya masha Allah taala kasta u dambeysaan ku shubay insha Allah taala waxaan idin rajeynayaa inaad ka heshiin. Hadda waxaan soo dhigayaa cananaaski waaye cananaaska xabad u soo dhigdhigaa inkastoo saxanku uu yahay saxan yar oo kooban haddana waxaa intii uu qaado ayaan 3 may noqonaya safkii marka saasaan u soo dhigayaa insha Allah saasaan ku soo wadaa saasaan ku soo dhameystiraa insha Allah taala waa casriye fudud macaan masha Allah ma iska badanina hadii kale ku cayiraysin adee bishii halkoo mar la sameystaan faanta insha Allah taala waa soo dhameeyaa dartan hal xabo ayaar dhinacyada saan waa kala gooyo dhinacyada saare ma kas jabkii ugu dambeeya wala isku aadina bis marka waxaa ii diyaarsan naal xabaab ka sii dambeeya hala baasi dambeeya xabada dambeysna taa malayna hadda waxa ku soo shubtay keega isku soo xurbiyo ayaan ku soo gadinayaa meesha masha Allah macaankan ku dhahay adiga le maxaa dhahay cashaa u soo qaada ama qaxwo ma laga sheekeyn karaan ku dhahay bes saxanka raba inaan galagaarsi waa kana masha Allah meesha waxay ii tahay ovenka 250 waan sii diyaarsaday waan geliyay qadartana ovenka toos ugu diraya insha Allah waa kana waa ka soo baxay asagoo aad u bislaaday waa isla arkeena waxa uu noqdo gadaashiisa ama markii aan gadiyo waa kana jabaan ka soo goostay sugu masha Allah taala waxaan ku dhahay hadii aad ka heshay jabkii waa ka saanay dhadhamiye hadii aad ka heshay like share
aan commenti waa aad u fudud yahay marka cid kastana way sameyn kartaa isku day marka inaad baroobaysid ka bacdi commentiga igu soo qor wixii kala kulanta